beesha dhulbahanta ayaa iska soo afjartay sidoo kalena ka adkaatay guud ahaanba guutada toddobaad ee uu hogaaminayay horgalmahad cambaasho dagaal uusan dhiig ku daadan halkan waxaan kala hadlayaa nimanka aanu dariska nahay halkan hoganayay ciyaalkeen halkan soo dhoobay wara walba magaalada waxaan ku joogteen in cambaasho dugsanaysa in cambaashada waa aragtaan iyo ciidankiisa inuu iyagooda kaga horeeyo halka diyaaridu ku yahay meedkii dhaawaceen inuu xamto xogihii ugu dambeeyay iyo macluumaadyo dheeri ah ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa sida beelweynta dhulbahanta ay ugu adkaatay sidoo kalena ay u fashilisay qorshe uu ku dhakri lahaa horgalmahad cambaasho oo maalmahan oo dhanba uu ka shaqaynayay barnaamijkana ayaad ku daawan doontaan ciidamadii ugu badnaa oo ka goostay iyo sidoo kale markaasi xilligan ciidamada ku harsan qaybta waqooyi ee horgalmahad cambaasho xilligan saldhigga u ah iyo guutadii toddobaad oo guud ahaanba lagu kala cararay cambaasho ilaahay kama samaysan cambaasho ilaahay baa samaystay dad baa in badan waxaan dhowranay taliyaha mahad oo aan islahayn dhiigu biyo maaha wuxuun ayuu la imaanayaa si waxba u la imaan waayay go'aan baan gaarnay degdega waxaan go'aansanay inaanu ka mid noqono xaquudirirka SSC taliyayaasha kale ah Yuusuf Quujo iyo sidoo kale taliye Mubaarak Jiqda ayaa la kala wareegay ciidamadii ugu badnaa oo ka soo goostay horgalmahad cambaasho mahad cambaasho isimada dhaqanku waa ay la hadleen wuxuuna si cad u yiri anigu waxaan ahay nin Sacad Muuse ah iyagana dagaal kuma qaadayo idinkana idin kuma qaadayo wixii idin raacayana idinka ayay idin taala waxa halkaasi dhacday markay in isimada dhaqanku ay ku guuleystaan in guud ahaanba la soo kala furfuro ciidamadii markaasi ku sugnaa qaybta toddobaad guutada toddobaad aynu dhahnay oo saldhigoodu ahaa qaybta waqooyi ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool haddaba waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa tirada ciidamada beelaha dhulbahante ee ka soo goostay gaadiidka ay wataan iyo sidoo kale markaasi taliyayaasha xilligan sida tooska ah ciidamadaasi ay ugu biireen ee markaasi loo kala qaybiyay ciidamadii ka soo goostay ina cambaasho maxaa hadda ku harsan ciidanka ku harsan waa intee tiradooda ayadana halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa balse intaan ugu gudbin xogtaasi waa faahfaahsan dhammaantii muuqaalkan sii sheergareeya la wadaaga saaxiibadiina qof kasta oo Soomaaliyeed oo ay ku weyn tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed muuqaalkan hal ay gareeyo YouTube-keena subscribe ha saarto boggeena Facebook-na follow na soo dhaho kuma hasanidin isku soo laabasho wacan isimada dhaqanka ayaa teeriyo shalay xalay waxay wadeen sidii loo kala furfuri lahaa dhalinyarada ku hoos jirtay taliska horgalmahad cambaasho ee guutada toddobaad oo saldhigoodu yahay qaybta waqooyi ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamadii ugu badnaa shay ayay warbaahinta la hadleen oo ka soo goostay xalay ilaa iyo maantayna waxa ka soo goostay gaadiid ciidan beesha ugaaryahan waxa ka soo goostay 5 gaadiidka ciidamada ah iyo sidoo kale kontomeeyo dhalinyarada beesha ugaaryahana sidoo kale waxa ka soo goostay beelaha Khalid iyo Yaxya oo iyagana ciidamadooda la soo goostay laba baabuur ayay leeyihiin beesha Khalid ee ka soo goostay horgalmahad cambaasho sidoo kale ciidankii jufida guud ee jaamac siyaad ama beesha jaamac siyaad iyagana waxay u soo wareegeen dhanka ciidamada xaquudirarka ah ciidamadaasina waxa loo kala qaybiyay taliyayaasha kale ah Mubaarak Jiqda iyo sidoo kale taliye Yuusuf Quujo oo halganka qayb libaax la ka qaatay ciidamadooda yaa ku haray markayna cambaasho jaamac siyaad oo dhan waa ka baxay marka laga reebo jufudiisa hoose oo loo yaqaano reer xir 112 wiil oo jufudiisa hoose ah iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo aan kor u dhaafin tobaneeyo ayaa haatan ku harsan qaybta waqooyi saldhigii ahaa ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isimada dhaqankuna waxay xilligan ku guda jiraan in raggaasi dhalinyarada ah la badbaadiyo sidoo kale markaasi laga kala furfuro istiraatiijiyadii guudna waa lagu jabiyay ciidankii doorka ee shalay halkan soo dagayna saakay waxa halkaas ku ruqaansaday ciidamada xaquudirarka ah dagaal kooban ayaana ka dhacay wana isaga bixin haatan meesha waxa ku soo haray labadii taangi ina cambaasho 112 wiil oo reer xir ah intaas ku soo hadhay iyadana ilaa caaway saacadaha dambe ilaa maantay ayaa lagu howlan yahay in raggaasi dhalinyarada ah ee markaasi la furdaamiyo oo laga soo saaro sidoo kale markaasi la kala furfuro taasina waa guul weyn oo soo hayatay ciidamada xaquudirarka ah halka kaba sheegayna siraha ciidamada
go'doon ayay ku jiraan jabhadda argagixisada SNM oo qorsheynaysa in duulaan weyn ay ku soo qaadaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool haddaan idin iftiimiyo mar dambe ma heli doonaan meel ay gurmadka kala soo baxaan sidoo kalena ma ay heli doonaan meel dambe oo ay marsiyaan dhaawacyada dagaalka uga dhaawacma oo sheekadaasi waa ay soo afjarantay gurmadadii ugu dambeeyay ayaa gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Laascaanood waa naf iyo ciidan aaway iyo sidoo kale maalmahanba waxaana ay dadku diyaar u yihiin in ay iska dulqaadaan cadawga argagixisada Soomaaliyeedka gooni goosadka ah ee SNM